beesha garxaajis waxay go'aansatay in aanan ka qayb gelin kana mid ahayn ergada uu sheegay Muuse Bixi inuu diray laascaanood sababtoo ah ma qaadi karno kalsoonida inuu aqbalayo go'aamada ay ergadu gaadho waxaanan u sheegayaa dabadii iyo gudaba reerka maanta garxaajis meel kastay joogaan inay la socdaan go'aanka qaataan weelaystaan war mar haddii aad annaga waxa weeye war aan jirin naga sheegaysaan sideebada erga u noqonaysaa mar haddaa sidaa tihiin waad fashilateen iska noqda beelaha garxaajisna waxaan leenahay sidaa aad waxa weeye go'aanka fiican u qaadateen waa dhaqankii la arki jiray weeye waana raggii wixii lidinku yaqaanay weeye waayeelka garxaajis ee sharafta badan ee sida fiican u hadlay aad iyo aad baad u mahadsantihiin tala iyo tayiisa naga dhaxaysa waa soo dhaweynaynaa go'aankiina waana ku shaqaynaynaa صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرق من قابيين قد دا قد بلوين تقرحاتيس يم الصنبيت كالصلادين تا وبريهم بك السعودي مقالة ملحة جمهورية الصومالي لاني هرقيساء شرر كاس oo qaybaha dhammaan bulshadu ay ka kooban tahay ka qayb galeen waxa ka soo baxay warmurtiyeed nuxurka iyo ujeedada ka soo baxay waxa waxa warmurtiyeedkana waxa inoo akhriyi doonaa ayaale maxamed cumar باذن الله تعالى halkaas ay ujeedado dhammaan ku dhan tahay وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وبعد maanta ay bishu tahay 19 bisha labaad 2023 halkan waxaynu ka akhriyo doonaa bayaanka ay soo saartay gudida guud ee beelweynta garxaajis hordhac dhismaha dawladnimada iyo salaadinta mustabeedka hordhac dhismaha dawladnimada iyo nabadda Soomaaliland waxay ku qontahay heshiis bulsho oo ay gaareen beelaha wada degan Soomaaliland heshiiska waxa laf dhabar u ah wada tashi isku tanaasul isqancin nabadgelyo iyo ilaalinta xuquuqda asaasiga ah ee bulshada iyadoo laga duulayo xeerarka caalamiga iyo xuquuqul insaanka iyo maqaasidda shariicada islaamka dastuurka Soomaaliland waxa uu arrintiisa ku tilmaamay in dadweynaha Soomaaliland uu ay arag u yahay ciribxumada iyo dhibaatada xukun ku dhisan talamarorsiga iyo kalitalisnimada kana feejigan yahay dib ugu noqoshada xukunka noocaas ah waxa cad in xukuumadda Muuse Bixi Cabdi oo si cad ugu xadgudbay heshiiskii bulsho ee ka dhaxeeyay beelaha wada degan Soomaaliland isla markaana ka talaabsaday dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaal waxa uu ka dhigan yahay xukunka dalka mid kale talisnimo caburin iyo xadgudub xuquuqda insaanka ku shaqeeya waxa uu xiray suxufiyiin madax bannaan iyo dadka aragtidooda ku cabira baraha bulshada bishii August 12keedii 2022 waxa xukuumadda Muuse Bixi ay dishay dad shacab ah oo si nabad ah ku cabiraya aragtidooda siyaasadeed iyadoo uu adeegsaday xoog xad dhaaf ah iyo xabad nool oo keentay dhaawac iyo dhimasho waxay xidhay dad kor u dhaafaya boqolaal June sanadkii 2022 waxay xukuumaddu adeegsatay awood xad dhaaf ah hogaamiyaasha mucaaradka iyo mudanayaal la soo doortay oo leh xasaanad waxay sifo sharci darro u xidhay madax dhaqameed talo soo jeediyay madaxweynaha oo ugu baaqay inuu dastuurka ku soo noqdo arrinta laascaanood waxa ugu dambeeyay ku tabashada xuquuqda insaanka caburinta raay dhiibashada iyo dad shacab ah oo xabad nool la dhacay dhacdadii ka dhacday magaalada laascaanood taariikhdu markii ay ahayd 27 December 2022 waxa ciidanku xabad nool la dhaceen dad shacab ah oo ka gadooday dilalka qorshaysan ee loo adeegsanayay haldoorka iyo birmigeedyada gobolka Sool muddadii 10 sanadood ka badan caburintaas waxa ay la mid tahay habdhaqanka lafsan ee uu caadeystay xukunka Muuse Bixi xukuumadda Muuse Bixi waxa ay diideen fuliso hadalladii heshiiskii la galay Professor Ali Khaliif Galayd oo muddo badan daba socday in Soomaaliland heshiiska higeliso waxa muuqata in sida ay xukuumaddu uga falcelisay mudaharaadada dadka shacabka ahaa ee December 2022 ay ka sameeyeen laascaanood oo ahaa mid qaldan iyadoo habka ay u martay uu yahay mid ka baxsan qaababkii Soomaaliland lagu yaqaanay shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka waxa cad in dibtaas lagu maareyn karayay si ka duwan xabad iyo xoog ciidan beesha garxaajis oo maalmihii u dambeeyay lahayd wada tashi iyo shirar ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ay beeshu leedahay waxay soo saareen go'aanadan hoos ku qoran go'aanka beesha garxaajis
markii ay aragtay duruufta qallafsan ee dalka ku jiro iyo taariikhda Soomaaliland markii ay diristay dastuurka dalka iyo heshiisyadii beelaha Soomaaliland 1993 markii ay aragtay dhacdooyinkii faraha badan ee iska soo daba dhacay 5 sanadood ee ugu dambeeyay ee ahaa ku xadgudubka dastuurka iyo heshiisyada bulshada iyadoo dilalkii dhaawacii iyo xarigii sharci darrada ahaa ee xukuumaddu geysatay June August sanadii 2022 kana dhacay magaalooyinka Hargeysa, Burco iyo Ceergaaw iyadoo in beesha Garxaajis dhulbahanta ka dhaxeeyo deegaan aad u ballaaran iyo walaaltinimo isla markaana beesha Garxaajis ay doonayso in dhammaan beelaha kula noolaato nabad marka ay ku qanacday gafafka ku talagalka ah ee ay geysatay xukuumaddu magaalada Laascaanood waxay soo saartay go'aanka waxay si xoog leh u cambaaraynaysaa dagaalka ka socda Laascaanood iyo dalalka shacabka aan hubaysnayn 2 waxa la mas'uuliyadda waxa ka dhacay Laascaanood xukuumadda Muuse Biixi Cabdi 3 beesha Garxaajis waxay go'aansatay in aan ka qayb gelin kana mid ahayn ergada uu sheegay Muuse Biixi inuu diray Laascaanood sababtoo ah ma qaadi karno kalsoonida inuu aqbalayo go'aamada ay ergadu gaadho annagoo ku xisaabtamayna dhaqankii hore looga bartay iyo in magaalada Laascaanood ay ka socoto xabad aanu jirin jawi nabadeed oo lagu wada hadli karo 4 waxaanu tacsi u diraynaa dadkii ku dhintay Laascaanood ehelkooda iyo qaraabadooda 5 go'aankan waa mowqifka rasmiga ah ee beesha Garxaajis mana jirto cid kale oo ku hadli karta magaca iyo afka reerka ama kaga qayb gali karta shir magac iyo afka reerkaba tala soo jeedin beeshu waxay soo jeedinaysaa oo ay xal u aragtaa 1 in si run ah loo joojiyo xabadda 2 in ciidamada la kala fogeeyo oo la geeyo meel aan xabaddu iska gaari karin si xabad joojintu u hirgasho 3 in la joojiyo hadallada xanafta leh ee wax kala fogeyn kara 4 xukuumaddu waa inay ciidankeeda geyso meel aan xabaddu iska soo gaari karin isla markaana waa inay si dhab ah u xakamayso ciidankeeda si xabad joojintu u hirgasho 5 garaadada gudida culimada iyo waxgaradka beesha dhulbahante waxaan ugu baaqaynaa inay qayb ka qaataan fulinta xabad joojinta iyagoo ka qaadanaya doorka kaga beegan ee ah xakamaynta ciidanka 6 in aan wax caqabad ah lagu samayn kaalmada bini'aadamnimo ee la gaarsiinayo shacabka ku barakacay dagaalka sokeeye iyo dadka dhaawac soo gaadhay billahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ilaahay baa mahadda koobaad leh subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo aan ku mahad celinayaa waayeelka iyo waxgaradka reerka ee halkan maanta hawshan isugu yimi inay fuliyaan qoraalka halkaa laga akhriyayey iyadoo dee shirku intan ka ballaadhnaa ama uu ka baaxad weynaa intanu ay tahay guddidii iyo mustambeedkii salaadiinta iyo odayaal iyo adigu waxgarad kooban mahaddaa iyo tilmaantaa kadib halkaa qoraalkaa laga akhriyey waa qoraalka rasmiga ah ee reerka waana sidaasaanu aniguna aan ku guddoominayaa haddaan ahay suldaankii guud sidaasaanaanu insha allahu tacaala ku rajaynaynaa inay uu ku midho dhalo oo uu ku meel maro waxaanan u sheegayaa dabadiiyo gudaba reerka maanta Garxaajis ee halkan salaadiintoodii iyo guddidii guud fadhido ee go'aankan hogaaminaysa dabadiiyo gudaba meel kastay joogaan inay la socdaan go'aanka qaataan weelaystaan insha allahu tacaala dee ku dhaqankiisa iyo ka wada socodkiisana aan ka wada soconno aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad idiin salaamayaa bahdiina saxaafaddana waa idin salaamaynaa iyo odayaashiina kale halkan ka soo qayb galay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaanu joognaa magaalada Laascaanood xaruntii gobolka Sool halkan waxaa fadhiya salaadiintii gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn sidaad nooga barateenba annaga hadalkayagu ma badna laakiin marka wax jiraan maalinta horena waan sheegay inaanu hadallo waliba hadalkaanu maanta ku hadlaynaa uu noqdo kii ugu dambeeyay waa waajib wey xalayto waxaa miidiyaha la geliyey nin runtii anigu aanan garanayn laakiin yidhi suldaan baan ahay laakiin uu ag fadhiyey suldaanka guud suldaan daa'uud oo uu yidhi wafdi baanu nahay dhaqana oo erga ah oo Laascaanood ku socota oo garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo garaadada kaleba ay noo yeedheen
warnimayow arrinkaasi waxa weeye ninkii maamaahay wuxuu yidhi geel waana hori jirnay waana hayn jirnay war erga waa naqaanaa waana naloo geli jiray waananu geli jirnay erga labay ku timaadaa erga iskeed u soo dhaqaaqday marka wax dhacdo oon cidna waxba weydiin oo meeshii wax ka dhacay soo fadhiisata iyo ergo intay soo hadasho loo diyaar garoobo waa mid subxaana la weeye labada erga midna annagu ma hayno erga waxaanu haynaa war sheegaysa aan jirin oo ilaa muuse gaadhsiisay oo aanu ka hadalnay war waxaanu maanta caddaynaynaa inaana annagu cidna u yeedhin waxaanu caddaynaynaa inaana cidinala soo hadlin waxaanu caddaynaynaa cidna la soo xidhay midna ayna jirin suldaan daawud waxaan leeyahay agtaadu fadhiyay ninka hadlaya inay suldaanka ayuub baan ahay anuu ayuub waan aqaanaayo suldaan uwaas axmed baan aqaanaa mar haddii suldaan daawud agtaada uu fadhiyay waftigaagana uu ka mid yahay oo uu leeyahay suldaanka arrinkaas wax ka og oo garaadadii iyo waxa weeye uu la soo xidhay waad og tahay suldaan daawud labadeennu maalintii ilaahay u naxariistay aabbahaa dhintay ayaan kuu tacsideynaya baa teleefonkeena isugu dambeysay dhowr jeerna xafladaynu isugu nim ilamaad soo hadlin garaadadan gobollada sool iyo sanaag lama soo hadlin mar hadday sidaa tahay suldaan waxaanu ku leenahay beelaha garxajisna warkoodu waanu maqalnay oo bayaankoodu waa dhegaysanay berberaad maraysaa iska noqo oo tolkaa go-aankay qaateen la qaado oo iska noqo annagu waxa weeye suldaan lama aan soo hadlin kulamana aanaan soo hadlin ummaddana waxaan u sheegaynaa mar haddii hadalku soo noqnoqday war hal la ogaado war hoy annagu cidna umaanaan yeedhin cidna la soo hadashana ma jirto ummadda islaamka waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa walaalaha waqooyiga u sheegaynaa in ergadan soo noqnoqonaysa ee lagu been abuuranaya inaanay jirin waar ma jirto war dhaqanku saa ma ahaan jirin war dhaqanku labada qodob buu ku imaan jiray erga waxa weeye annagoonu marka wax dhacaan toos baan u tegi jirnay annagoon cidda la hadlin iyo ergasha soo sheegto la soo dhoweeyo war mar haddii aad war aan jirin ka soo horraysiinaysaan oo aad annaga waxa weeye war aan jirin naga sheegaysaan sideebaad erga u noqonaysaan sideebaad waxa weeye wixii laydiin dhiibana aad run uga sheegaysaan mar haddaa sidaa tihiin waad fashilateen iska noqda warkaasuna maanta halkaa ku hadho beelaha garxajisna waxaanu leenahay iyadoo layga dambayn doono dee raggii dhaqanka ahaa ee ummaduhu markay islaayaan waxa weeye xaajaqaadka abaati sidaa aad waxa weeye go-aanka fiican u qaadateen ee walaalihiina dhiigooda aad waxa weeye wagli gadateen ee aad u leedihiin muxuu ahaa qodobada adag aad u soo saarteen waa dhaqankii la arki jiray weye waana raggii wixii laydinku yaqaanay weye beelaha kalena waxaanu leenahay haddaydan arrinkan raalli ka ahayn sidaa uga hadla asalaamu calaykum bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu warar fara badanoo intaas hor iyo daba maraya oo si dadka jaahwareer u geliyay unbaa nagu kalifay kelmada laga yidhaahdo kow annaga horta ma diidin nabadda labo ma diidin xabad joojin laakiin wax si saxa oo toos u socda ma baanu aragba marba hadal meel laga soo duubayo iyo kelmado la warfinayo iyo qaar le terrorism aan la dagaalamaynaay kulli bini'aadamku dhan way dhegaysanayeen marka bal qolyaha waxaan oran lahaa marba hadalkiina saxa oo hadalkinu jaha uun ha qabsado ama xabad ha qabsado ama xabad joojin iyo nabad ha qabsado qolyaha intaasaan oran lahaa oo bahasha iska saxa haddii nin wala soo doono isaga hadlo mid media wax ku soo qor mid cid baan la hadlay mid halka terrorism baan dagaalamayna oo wax la yaab leh war bal si saxa tadilaahi ka baqda waayahay erganimada dadku waa Soomaali waa la yaqaanaa dhaqanku wuu soo hadla waa la wada hadlaa hagee isugu nimaadna waxaynu yeelnaa haataa ah halkaas boroseskaas saas waa loo soo maraa qaar iska soo duulo oo markuu isoo taagay wadila joognaana waa la arki laakiin mid isagoo gurigiisa jooga iska leh hebel baan la hadlay oo halkan aan ka hadlo oo baraan baxaya oo waxyaalaha ku cusub kulli dhaqanka aynu niqiin hadalka odayaasha soo ururiyay aad u talax tagi maayo wixii arrin weynoo dambayn doonaan waayeelka garxajis ee sharafta badan ee sida fiican u hadlay waa sidii guurtinimada ahayd ee la yiqiin ee ku salaysnaa jirtay dhaqankii Soomaalida aad iyo aad baad u mahadsantihiin cid kastana waxaan u cadaynaynaa xabad joojin iyo nabad baa la diiday cid ku marmarsoon doontay waa been wax u socda iyo wax wada saxan haya midna ma aan arag rajaac hadalka uu yiri inteedoo dhan waa la qabnaa ana waa ku raaxsanay isagoo dhan waa hadal uu yiri oo lagu tashaday taasoo waa intaa hadalka kale isaga ka jawaabay waxaan la adkaynayaa xagga garxajka go'aankiisa ku saabsan dowladda ama Soomaaliya taariikh bay leedahay iyada oo dowladnimada Soomaaliyeed hadal ahay reedab khaatimo meel la yiraahdo yay fadhiisteen nimanka garxajis waxay ku baaqeen Soomaaliya soo nabad iyo dowlad gudub waa taariikhdoodii tan maantana sidaa ay u hadleen waa tala aanu isla dhiqin
weligayana horaanu idhi tale iyo tayiisa naga dhexaysa waxa ulahoo weyna kuma kala hadno weligayaba iminkana waxaan leenahay waa soo dhoweynaynaa go-aankiina waana ku shaqaynaynaa meelaha kalena dee ciddii garashadaa lehi ha laga arko asalaamu calaykum